halkan waxaa ka socota falitaanka beer cusub waana hawl aan fududayn in beertan la sameeyo kadibna la beero waana arrin caqabadaheeda wadata balse manaafacaadkeeda ayaa ka weyn shaqada halkan hadda ka socota waa haddii ay miro dhashee in ka badan 10 hektar ayay ka kooban tahay beertan oo hadda shaqadeedu ay ka socoto duleedka Cadaado shaqo dheer kadibna markan miro ayaa lagu beerayaa cabdiraxmaan macalin maxamuud waa asaasaha beertan cusub waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan dalkooda iyo deegaankooda oo ay wax soo saartaan runtii waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa Axmed Sheekh Xasan Jagajago iyo injineer Geedo Qorow oo ah dad raacadaado ah oo runtii dadka horumarinta iyo wax ka faa'iideysta ka shaqeeya in badan injineer Geedo Qorow iyo sidoo kale Axmed Sheekh Xasan Jagajago oo ah maamulaha mashruuca maanta Geed Beer waa shakhsiyaadka ku dhiirigeliyay Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud inuu ku fikiro asaasaha beertan inuu digirtii galeydii masagadii yaanyadii qudaartii qarihii dhammaan waa iskaashanay waxaan ku fiican tahay sidaas maanta waxa weeye wadankan camal la'aan baa jirta shaqo la'aan ma jirto dadkii darbiyada fadhiyaan ma rabaan inay gacan kor qaadaan ma aha saan noloshu anagu dad waaweyn baan nahay waxaan rabnaa inaan waxaan tabcanay la soo baxno waxaan ilaahay ugu mahadinayaa Cabdiraxmaan Yare oo nin wanaagsan oo dhowr boqol oo mitir halkan dhowr hektar ka diyaariyay oo keligii noqday inaan u soo gurminay makiinadii gurmad weeye anigu mashruuca maanta Geed Beer ah qalabkayga wataan nimid injineerkii Geedo Qorow oo asaguna ragga maaragtay activistiyaasha Cadaado asaguna waa yimid nin walba gacantiisa aanteena ku beeraynaa si aan u cunno waxaan kala soo baxnay dhulkeena haddana waa u jeedaa maanta beer aan dhex taaganahay aan rabno inaan tacabno oo ka soo saarno dalag kasta oo loo baahan yahay marka hadda waa alxamdulillah waa u jeedaan dadkana waxaan ugu baaqaynaa inay u soo jeestaan dhulkooda inay xoolaha dhaqdaan inay beeraha fashaan inay wax soo saarka dhulkooda inay gaarsiiyaan heer laga maarmo in meel kale wax looga doono inkastoo ay jiraan beero kale oo ku yaala Cadaado haddana dadku waxa ay yihiin kuwa ka dharagsan beeraha iyo faa'iidadooda Cabdiraxmaan se ayaa hadda tusaale wanaagsan u noqonaya dhalinyaro fara badan oo ku fikirayay in dalka aysan weli ka jirin fursado shaqo dhalinyarada Soomaaliyeed dalka shaqo la'aanta ku hayso baahsan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo iska wada tahriib ku baaba'ay kuwa dalka jooga laftirkooda aan shaqo haysan waxaan go'aansaday inaan dhalinyarada aan maaragtay dhalinyaro iga horeysana way jiraan oo wax qabsaday laakiin anigu inaan raggii iga horeeyay ku daysado oo aan maaragtay abuuro mashruucan beer tabcashada arrintan waxay meesha ka saaraysaa su'aalo badan oo ku dul hagoognaa kuwaas oo oranayay dhulku beera kuma habboona dhulkuna dhul habboon oo beeraha ku habboon waay oo beer roobeed ku habboon beer hadday waraab haysana waraabna ku habboon roob hadday kaliya noqotana beer roob ku habboon waay oo labadaba ku habboon dhulkan dad ka faa'iideysto ilaahay waxa la doonayaa in laga faa'iideysto arrintan falitaanka dhinaca beeraha waa tallaabo kale oo hore loo qaaday tan waxay dhalinyarada ka saacidaysaa in shaqo abuur fiican ay ka helaan gudaha dalka sidoo kale ay u soo jeestaan manaafacaadka waxyaabaha gudaha dalka laga helo saadaq laki galmudug TV Cadaado fadlan shargaray hada shargaraysaan birita 10 fi amad yeelisaan hada shargaray hadii kale naga la taga wax anaga inoo sheegay hadii hada shargaray kulligii shargaray hada dilay fidmay shargaray kulligii all of you now kullu fa badan arafkayga aan xiranayaan una dilay fid waxaan isbay soo dhooban ilaa waa been ilaa saaxiib baan kula nahay been ورا شرقريه يلا شرقريه